Soomaaliya waxay leedahay xeebta ugu dheer Afrika, xeebuhuna waxay ka mid yihiin deegaanka ay dadka sida tooska ula dhaqmaan. Marka laga soo tago in Soomaaliya ay leedahay xeebta ugu dheer qaaradda tan Afrika, haddana ma jiro qorshe lagu horumarinayo xeebahaas lagana faa'iideysanayo. Qashinka iyo bacaha ay soo caariso badda waa waxa suurad xumeeya xeebaha, foolxumo iyo meel aan la joogi karin ayuu ka dhigaa qashinka xeebta. Magaalada Muqdisho waxaa is-abaabulay dhalinyaro mutadawiciin ah maalin kasta oo Jumco ah aroorta hore ayay u soo kalahaan si ay u nadiifiyaan xeebta Liido. Waxa ugu badan ay la dagaalamaan waa bacaha iyo weelasha loo yaqaano take away-ga. Intaasi waxaa dheer qashinka kale ay soo caariso xeebta. Qashinka ay xeebta soo caariso marka laga soo tago qashinka kale ee dadka gacmahooda ku geeyaan ayaa ugu badan. Mana jiro qorshe looga hortagayo wasaqeynta xeebta. Waxaan la hadalnay qaar ka mid ah dhalinyarada is-abaabushay ee doorkan xeeb nadiifinta u istaagtay. magacii waa Xasan Maxamed Jakula waxaan ahay madaxweynaha xukuumadda ardayda jaamacadda Simad Xajsi saakay xeebta Liido waxa uu imaanay olol nadaafadeed inaan ka qayb qaadano iyo bilicda deegaanka intaba waxaan rabaa inaan aad ugu mahad celiyo dhalinyarada Soomaaliyeed ee u istaagtay dalkooda inay bilic gaarsiiyaan nadiifinta iyo howlaha ay ka hayaan waxaan leeyahay hawshan howlgu dadku waxay u maleeyaan qaranka u taalo laakiin dhalinyarada Soomaaliyeed ee isku abaabushay gabdho iyo wiilal iskugu jira sidii ay bilicda uga shaqeyn lahaayeen runtii waxay mudan yihiin bogaadin mudan saakeen anagana ka xajis ahaan iyo ka ardayda jaamacadda Simad intaba si weyn uga qayb qaadanay waxaan rajaynaynaa had kadib inaan si weyn aydan ugu sii qayb qaadan doono Ilaahay hadduu yiraahdo waxaan saaka isbuucii kontonaya shanaad ka soo qayb galnay ololaha isxilqaanka aan ku nadiifinayna xeebta Liido runtii farxad ay noo tahay in muddo soo wadnay ololahan waxaana astaan ay u tahay in qofka Soomaaliga ahi uu lahaansho dareemi karo يعني وجودشة واجبك موادنمو وايو وأستانتا aniga iyo qofka kale ee ajaanibka ee waddanka joogana kala saaraysa waxay tahay in aan lahaansho muujino oo aan dalkeena iyo dadkeena aan nadiifsano runtii mar waa ajar mar waxa weey isxilqaan mar waxa weey nadiifin mar waxa weeyaan muujinta muwaadinimada iyo lahaanshaha dalkeena dadka farxad ay noo tahay in aan saaka isbuucii joogno konton iyo shanaad insha Allah taala inaan sii wadnana waan doonaynaa runtii shaqada markaan bilaabayn maanta فرق وين أقول حي وحكى عركيسانة بلعد حياته وديب صار نقطي ضدك وصل الحيس تجاه حياته أدو كورني شلا قشن كأدو بدنا لكن ما أنت ضدك حياته معنا أدو بتين وأنا دقن أدو وأنا أكسنه إلا جوكتي شقدا هوشة وحنقول بلا من لحق في بانتو عركيسان بقول قف عن أمرنا شقة عن عندنا أكو حرنين أما قفل بني سند متضوعنا ما كشقينا أيو ولا جوكتي runtii waxaan ku faraxsanahay inay dhalinyaradeena ay fahmeen ahmiyadda ay deegaanka ku leedahay mar walba deegaanka aan nadiifino waa mar walba caafimaadkeena ee nolosheena horumarayso oo caafimaadkeena kordhayo waxaan bilaabay anaga naftigeena dhaqankeena wax ka bedelno aan isticmaalno bacaha ama maxaa la haye deegaanka u saaxiibka inta isticmaalaan bac qafiifto kale hadda waxaan isticmaalnaa kollegaan oo kale si aan deegaanka u ilaalino marka waxaan rabnaa qof walba Soomaaliyeed deegaanka ama meeshuu ku nool yahay inuu ka ilaaliyo inuu qashin ku tuurin inuu qashin dhigin haddii aan xaafadaada nadiifin karin ama magaalada nadiifin karin walaal fadlan qashin ha ku tuurin taas ayaa hal ku dhignay sidoo kale waxaan dhahnaa deegaankeena waa nolosheena mar walba aan deegaankeena ku dadaalno oo mar walba horumar sameynayno waa mar walba oo caafimaadkeena iyo magaaladeena ay horumarayso markaas adduunkan way arkeen isbeddelka cimilada iyo dhibaatada jirto aad loo arkay dhalinyaradeena kaliya kuma shaqeynaa in xeeb nadiifin dhirta waa magaalada ku beernaa deegaanka guud ahaan ahmiyadda uu leeyahay aad u fahanay haddii aad deegaanka burburin asigana burburin doono marka meeshaan maalinta imaaneen wixii bira yaalo iyo wixii qashin yaalo iyo wixii dhar yaalo wixii caag yaalo maanta fiirsay u qurxan tahay iyo indhahaas u soo jiidanayso meesha hawada aan ka helayno inaan ilaalino kalluunka badda ku jiro kale sidoo kale ahmiyad weyn oo loo leeyahay nolosheena ku xiran inaan ilaalshano maxalooyana baddeena aan qashin ku shuban sidoo kale waxa aad ugu faraxsanahay inay dadka nala dareemeen xeebta inaan qashin lagu daadin inaan qashin lagu duugin taasna aan waxyaabaha aan ku faraxsanahay aan ku guulaysan ay qayb ka yihiin sii joogteynta hawshan isxilqaanka ah ee dhalinyaradan waxa ay horseedi kartaa xeeb nadiif ah oo ku wacan dalxiiska iyadoo ay muhiim tahay in qof kasta uu doorkiisa ciyaaro kana qayb qaato nadiifinta deegaanka